سلو وشهادتي شركته لغاية سنة صفر كامل. maanta waxaan halkan ku qabanay munaasabad lagu bixinayay ruqsadda ama shatiga lacagta mobile money-ga adeega ay sameeyaan shirkadaha telecom-ku laysanka waxaa la guddoonsiiyey shirkadda Hormuud Telecom waa hawl muddo dheer oo bangigu ka soo shaqeynayay sidaad ogtihiin adeega mobile money-du ama telefoonada gacanta ee lacagta la isugu diraa dalka oo dhan buu ka dhaqan galay muddo sanado badan iminka aad baa loo isticmaalayay laakiin ilaa hadda ma lahayn ruqsad kama haysan bangiga dhexe wixii maanta ka horreeyay ma jirin shirkad haysata ruqsadda mobile money-da oo adeeggaa bixisa sababtuna waxay ahayd shirkaduhu waxay samaysmeen inta aan dibba loo soo noolayn bangiga dhexe waqtigii burburka ayay ka soo bilaabmeen shirkadaha telecom-ku ama telefoonada berigii dambe adeegan bay ku kordhiyeen mobile money oo adeeg bilaasha kaasoo dadku waxna ku gato lacag isugu diro mobilka ku kaydsado iminka waxa la soo gaadhay waqti ay tahay in bangiga dhexe uu nidaamiyo xeer nidaamiye u sameeyo lagu maamulo adeega sababta ay laga maarmaan u tahay in xeer nidaamyaha la helo waxa weeye adeega waxaa isticmaala macaamiil aad u badan hanti aad u badanna way dhex martaa hantidaa haddii aan la kaantaroolin oo loo samayn nidaam lagu kor joogteeyo waxaa ku iman kara halis marka bangiga dhexe wuxuu sameeyey xeerar ay tahay inay raacaan shirkadaha adeeggaa sameeya oo markaa u sahlaya inay ka hortagaan wixii khatar ah ee ku imaan kara adeega ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahayna waa in la ilaaliyo hantida macmiisha iyo xuquuqdoodaba shirkadaha dadkii maalgashaday laftooda oo runtii shirkadaha badankooda waxa galay kuwooda waaweyn lacag aad u badan in iyadana hantideedii la ilaaliyo oo aanay ku iman khasaare maaliyadeed iyo mid sharci midna sidaa darteed loo sameeyo sharciyad iyo ruqsad loo ogolaado inay ku shaqeeyaan waxay siinaysaa kalsooni dadkii macaamiisha ahaa waayo bangigii dhexe wuxuu u diray markuu ruqsad bixiyo macnaheedu waxa weeye waa lagu aamini karaa waa aaminaad ayay ku sii kordhinaysaa runtii shirkaduhu ilaa hadda markii hore waa aamin bay ahaayeen ilaa hadda ma jirto shirkad cidi ku khasaartay oo mobile money-da ka shaqaysa ama hantii ku luntay laakiin haddana markay laysan qaadato oo xeerar cadcad oo la rabo inay khatarta kaga hortagtona raacado shirkaddu waxay siinaysaa kalsooni ka sii badan tii hore shacabka oo dhan sidaa darteed maanta shirkadda Hormuud Telecom ayaa noqotay shirkaddii koowaad ee adeegan u hesha ruqsad iyo sharciyad ay ku shaqayso sababtaas bay ahayd munaasabaddan maanta aan u qabannay dalka hore loogama bixin bangiga dhexena hadda ka hor ma bixin ruqsadda mobile money-da waa tii ugu horreysay shirkaddii ugu horreysay ee nasiibkaa yeelatayna waa sidaan kuu sheegay shirkadda Hormuud faa'iidooyin badan baa ugu jira haddaan macaamiisha ku horeyno macaamiisha waxa ugu jira waxay maanta laga bilaabo og yihiin inay lacagtooda EVC-ga ay ku isticmaalayaan ay tahay lacag uu la socdo bangiga dhexe ruqsaddeeda bixiyey og yahay inay xeerarkii loogu talagalay raacayso ka hortagayso khatarihii ku iman lahaa sidaa darteed
waxay iyagu faa'iido u tahay inay aamini karaan aaminaadii hore ay aaminayeen mid ka sii badan aamini karaan macaamiisha shirkaddii waayo waxay maanta og yihiin wixii ka dambeeya shirkadda in lala xisaabtamayo in lala soconayo adeegga siday u sameeyaan in sida uu u yahay u xafidan tahay ammaanadoodu ama lacagtoodu la kor joogtaynayo in audit ama hanti dhowr lagu samaynayo in bangiga dhexe uu qaaday mas'uuliyadda ah inuu dabagal iyo kor joogtaynba adeegan ku samaynayo taas macaamiisha waxay siinaysaa kalsooni waa sababta loogu aamino bangiyada lacagta waa bangi aan laysan lahayn weligaa lacag ma dhigan kartid waayo ma aamini kartid laakiin bangi laysan leh qofku wuxuu og yahay sababta laysanka loo siiyey macnaheedu waa shaabad sheegaysa in lagu aamini karo adeegga mobile money-duna waa sidaas oo kale isagu bangi maaha laakiin waa adeeg lacag badani marto wax lagu gato lagu kaydsado la isugu diro sidaa darteed qofka macmiilka ah waxay siinaysaa kalsoonida iyo aaminaadda maadaama imika la socdo shirkadaha kale ee aan iyagu weli qaadan laysanka waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinaynaa inay degdeg u qaataan maadaama uu maanta jiro xeer nidaamiye lagu bixiyo laysan waagii hore ma lahayn bangigu xeer iyo xeer nidaamiye uu ku maamulo laakiin hadda wuu leeyahay sidaa darteed inay iyaguna qaataan laysanka baa laga rabaa sida ugu dhaqsaha badan oo soo dalbadaan shirkadahaas weli soo dalbaday laakiin aan weli loo ogolaana iyagana shuruudaha ka dhiman inay soo buuxiyaan si loogu ogolaado iyagana sida shirkadda Hormuud oo kale shirkadaha waqti inay ku soo dalbadaan oo deadline hadda looma qaban waayo way kala duwan yihiin shirkadaha adeegga maaliyad bixiya mobile-ku ma badna markooda hore waa shirkado kooban qaarkood already way soo dalbadeen oo waanu haynaa codsiyadoodii waxbaa ka dhiman waxaa ka dhiman shuruudaha inay soo buuxiyaan shuruudaha mobile money-du ma qarsoona waa shuruudo cadcad oo la yaqaan waxay ku jiraan website-ka waa la publish gareeyay waxay ku jiraan website-ka bangiga dhexe idinka akhrin kara shirkad kasta akhrisan karta iyagana waan u diraa shirkadaha oo dhammaantood way haystaan marka inay shuruudaha cadcad ee la yaqaan soo qortaan license waafaqaya codsi oo ay leeyihiin iyagoo ku soo daraya development plan ama qorshahooda ah sidii ay shuruudaha ku soo buuxin lahaayeen intaa kadib bangigu wuxuu awood u yeelanayaa inuu codsigoodii eego oo markaa laysankii siiyo haddii ay shuruudaha soo buuxiyaan sida maantaba shirkaddii u horreysay laysanka loo siiyey waxaa soo hadhay shirkadaha aan weli qaadan maxaa u imanayaa cawaaqiba waxaa u imanaya hadda ka hor bangiga dhexe adeegan muu regulate garayn jirin mana nidaamin jirin sababtaa ma haysan sharciyaddii uu ku maamulayo hadda waxaa jira xeer nidaamiye sidaan kuu sheegay mobile money-da darteed loo sameeyey sidaa darteed adeeggu wuxuu noqonayaa adeeg sharciya markaad laysan qaadato sababta keliya ay uga badbaadeen in sharci darro ay maanta noqoto waxa weeye shirkadaha ayaa ka horreeyay sharciga oo jiray haddii uu shirkad cusub iminka la samaynayo lama ogolo inay shaqaba bilowdo ilaa ay liisan dalbato qaado maba loo ogolaba kuwii hore jiray fursad baa la siinayaa inay ku soo dalbadaan waayo way ka horreeyeen iyagu sharcigaba way shaqaynayeen adeeg malaayiin dollar ku jirto oo dadka runtii faa'iido u leh bay u hayaan marka inay soo dalbadaan iyo soo waafaqaan shuruudaha ayuunbaa laga rabaa weliba sida ugu dhaqsaha badan baa laga rabaa waa xidhiidh joogtaana noo socda dhammaantood waa la xidhiidhnay sidaan kuu sheegayna qaarkood waabay soo dalbadeen laakiin shuruudihii baa ka kala dhiman waa inay degdeg u soo buuxiyaan baan rabnaa waxyaabaha ka dhiman iyagan